kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warka galka wararka qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hiirshabelle Maxamed Cabdi Waare ka quusasho keenay howlgalka ka dhanka al-shabaab oo war culus ka soo saartay xayiraadii dhinaca internetka ee dowladda Soomaaliya ay ku soo rogtay qodobada kale aad ku maqli doontaan galka wararkana waxaa ka mid ah ilaa 33 waa kacdoon uu keenay ka quusasho iyo faham qof walba maalin baqad cid baa wax fahamta dadku hal mar ma wada fahmo waxa jirta mahmaah oo mataqaanaa oo ingiriis oo dheeyso dadka oo dhan ma wada doqonaysa kartid oo kama wada caqli badi kartid dadku maalinba muxuu ahay in baa soo fahmaysay waxyaalihi ay mataqaana isticmaali jireen waxyaalihi ku gamba jireen diin muxuu ahay ii sheegay diin ay ku gamba jireen wixii marka waa dadku waa fahmeen markay fahmeen waxa inta zaa'id ku ah yani xanuun zaa'ida oo dadkii ay mataqaana ii sheegay ay banaysteen yani xoolahoodii naftoodii sharaftoodii iyo cirdigoodii karaamadoodii awraadkoodii iyo haweenkoodii iyo gabdhahoodii waxay bilaabeen inay dadka bartilmaameedsadaan waxay bilaabeen inay ceelal duugaan waxay bilaabeen inay ceelal sumeeyaan wax yani dhaqanka islaamka iyo dhaqanka Soomaalida iyo dhaqanka bini aadanka oo saliimka aan ku jirin yay finally la soo shirtageen taasaana keentay dadku inay kacaan runtii waata dawladda Soomaaliya oo ay ugu sareeyaan madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxay ballan qaadeen inay garab istaagayaan dhalinyaradaas is abaabushay garab buuxana ay u yihiin maadaama ay garawsadeen inay iska dulqaadaan cadawga ummadda Soomaaliyeed horumar la'aanta u horseeday ma kula tahay al-shabaab waqtigoodii inuu soo idlaaday aniga waxaan qabaa shakhsiyan al-shabaab waqtigoodii waa dhamaaday taas shaki iiga ma jiro kaliya waxa la rabaa al-shabaab ma si fudud oo sida hadda kacdoonkan u bilowday si fudud oo nadiifa oo waqti kooban ayaan iskaga saari doonaa mase qaab daradii dhowr iyo 10 sano ay nagu la joogeen iyo kala qaybsanaanteeni iyo caraafkeeni iyo wixeenii ba maalinba mataqaanaa ciladeenu intay soo kor baxdo
yaynugu daahi doonaan oo aynu mataqaana waqtiga xoogaa nugu dheeraad doono taas unbaal ayaa doodu taagan tahay maahne mashruuci shabaab inuu dhammaado ayaguna waa fahmeen oo hadda guuritaanka iyo mataqaana deegaanada ay ka soo baxayaan iyo meelahay ka soo baxeen iyo istaraatiijiyada hadda qaateen oo ay mataqaana ay isku aruurayaan koonfurta ay u socdaan ayaguba dhaqankooda iyo sasaankooda waa laga fahmiyaa in waqtigoodu dhammaaday laakiin annaga waxna laga rabaa abaabulkeenu wuxuu noqon doonaa mid kala daadsan momentumkan iyo garaangartan wareegtana ma sideeday u socon doontaa mase qaabdaradeennii lawaa annagii ways naqaanahay waxaynii baa inta soo baxa qabiilkeennii iyo danaheennii iyo shabaab uqiil raadinteenna iyo shabaab ka mid ahaashadeenna iyo waxaasaa soo bixi doono oo calawasaadkaasaa nagu daahi doono taas waayo doodu ma ogiye shabaab waqtigiisa waa dhammaaday waata sidee loo soo dejin karaa marka maadaama aad tira waqtiga inuu nagu dheeraado unbaa noo daran sidee lagu soo dejin karaa in la cirib tiro waxaa loo soo dedeji karaa dowladda horta waa inay istaraatiijiye ka qaadato dowladdu waa muujisay dareenkeeda muxuu ahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba waa caddeeyeen taliyayaashu waa caddeeyeen wasiiradu waa caddeeyeen mowqifka dowladda mugdi kuma jiro horaanan u sheegay inay dowladdu mowqifkaas qaadataa waxay ka qiimo badan tahay 10 division oo ciidana oo aan istaraatiijiye lahayn ay ka qiimo badan tahay inay dowladdu tiraado waa naga go'an tahay waa u diyaaranahay shabaab waqtigiisa waa dhammaaday laakiin waxaa la rabaa niyadaas wanaagsan iyo muxuu ahay iyo mowqifkaas in istaraatiijiye lagu daro istaraatiijiyadaas habka dagaalka shabaabka lala gelayo deegaan walba dadka ku nool dhaqankooda iyo duruufahooda iyo xaaladahooda lagu saleeyo sababta meelo qaarkood dadku waa hubaysan yihiin waa kaceen kacdoonaa kacay meelo qaarkoodna waa u geli doonaa shabaabku dadka waa bahdileen waa qabsadeen nabadoonadii ka qabsadeen dhaqankii ka qabsadeen cid walba ka qabsadeen meelo qaarkood waa beeraley oo mataqaana waaba hubkayba ka dhigeenba marka in istaraatiijiyada doorka ciidamada iyo doorka muxuu ciidamada xoreynta deegaanada iyo ka dowladda iyo ka danab iyo international community qof walba doorkiisii sidii la isu waafaji lahay unbaa laga rabaa ma ogiye mowqifka dowladdu waa cad yahay niyawriyaasha ka howlgala waxa ay uga degeen inay u hoggaansamaan amarka dowladda ee lagu mamnuucayo inay isticmaalaan baraha bulshada iyo weliba internetka waxayna sheegeen in ay u baahan yihiin in aysan warbaahinta madaxa bannaan isticmaalin dacayadaha ka dhanka ah al-shabaab dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sabtidii shaacisay liiska websaydyada taabacsan al-shabaab waxayna u jeedisay shirkadaha internetka bixiya in ay hawada ka saaraan baraha bulshada ee ay adeegsadaan al-shabaab dowladdu waxa ay sidoo kale hawada ka saartay 40 akoon oo baraha bulshada ah oo faafin jiray wararka al-shabaab dowladdu waxa ay sheegtay in tallaabo laga qaadi doono cid kasta oo barahaasi wax ku qora al-shabaab ayaa sidoo kale u digtay shirkadaha bixiya internetka in ka badan 360 tahriibayaal ayaa lagu badbaadiyay axadii xilli ay isku dayeen in ay ka baxaan xeebaha waqooyiga dalka Faransiiska iyaga oo ku sii jeeday xeebaha koonfureed ee dalka Ingiriiska mas'uuliyiin ka tirsan dalka Faransiiska ayaa sheegay in tahriibayaasha la soo badbaadiyay ay ku safrayeen doonyo yaryar oo aad u liciifa ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka Faransiiska ayaa sameeyay howlgallo kala duwan si ay u badbaadiyaan muhaajiriinta ku dhibaataysnaa marinbiyoodka u dhaxeeya Faransiiska iyo Ingiriiska sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta ilaalada xeebaha ee dalkaasi Faransiiska guud ahaan ilaa iyo 367 qof ayaa la geeyay dekedaha dalka Faransiiska kuwaasi oo halkaasi haatan qaar lagu dabiibayo waxaa barihii ugu dambeeyay sare u kacay dadka muhaajiriinta ah ee isaga kala tahriibaya Faransiiska iyo Ingiriiska kuwaasi oo doonaya inay u gudbaan kanaalada u dhaxeeya labada dal iyagoo isticmaalaya doomo yaryar oo macbal ah haatase ciidamada ilaalada xeebaha Faransiiska ayaa sheegaya inay kor u qaadeen ammaanka xeebaha dalka Faransiiska intaas ayuu ku egyahay daawadayaal warkii galka wararka kala socoteen fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe noo saar haddii kale oo hore noola joogteen barnaamijka noo sii share gareesiyo dad badan u gaaro mahadsanid